بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan bahda ku xiran janaalka mimirqan janaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii sharxitaanka maadada fiisikiska ee fasalka form 4 ee manhajka cusub oo idinkaga imanayo mk janaal soo gudbihii waa saad mimary. fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalka inoo subscribe garee adigoo gujanay gambaleelka like commentiguna waa inoo muhiim. mahadsanid. waxaynu ku guda jirnay ama inoo bilowday cutubkii afraad ee la magac baxay reflection of light. noqodka ilayska ayaan ku guda jirnaa. cashirkeynii ugu horeeyey ayaan qaadanay. maantana waxaynu qaadan doonaa cashirka labaad oo aan ku falanqeyn doono insha allah, maadaama kii hore aan kusoo falanqeynay reflection of light on a plane mirror. maantana waxaynu darbidi doonaa amaan kusoo gudbin doonaa videogan image formed by plane mirror. haddii aad ku cusub tahay janaalka inuu subscribe garee adigoo gujanaya gambaleelka like commentiguna waa inoo muhiim. mahadsanid. image formed by the plane mirrors. imijyada ka samaysmaya ama humaaga uu sameeyo mirrorsyada weliba planeka ee salaxa. intaynu gudagelin marka hore inu qeexno maxaa la dhahaa image. humaag muxuu yahay ama sawir muxuu yahay? Seeing the details of an object or receiving them on a screen with the help of reflection is called image. macluumaadka shayga in la arko ama la helo oo weliba laga arko ama laga helo weliba screenka shaashada iyadoo markaas naga caawinaysa noqodka ilayskii markaas dhacay ayaa waxaa loo yaqaanaa image, ayaa loo yaqaanaa humaag. Seeing the details of an object in shayga macluumaadkiisii la arka oo receiving ama la helay on a screen laga hela marka shaashada with the help of reflection iyadoo markaa caawinaadaynu ka helayno reflection of light-ka ee falaara noqodkaahi iskoleed ayaa waxaa loo yaqaanaa an image, ayaa loo yaqaanaa humaag. laakiin markii aan fiirino oo qeexitaanka nooca ah scientifically waxaynu qaadan doonaa qeexitaan ka duwan qeexitaanka, balse si toos ah yacni markaa isku saameyn doona insha allah. however, scientifically an image is defined as below. imageka waxaan ku qeexi doonaa midda soo socota. When the rays of light diverging from the point after reflection either actually meet at some other point or appears to meet at some other point, then that point is called image of the object. When the ray of light markii falari rays diverging from a point ay kasoo fardhismaan bar after reflection noqodka kadib ay falaarahaasi layska ee divergingka soo sameeyey either waxay noqon doonaan laba midkood oo kala ah actually meet inay si saxa u muuqato, actually meet inay ku kulmaan si saxa at some other point bar kale, or appears ama u muuqata to meet inay ku kulmeen at some other point bar kale ama bar kale inay ku kulmeen marka ay soo noqdaan. then that point bartaasi ay falaar ilayska ay ku kulmeen ama u moodid inay ku kulmeen ama loo maleeyo ama biris u muuqata inay ku kulmeen waxaa loo yaqaanaa humaag, ayaa loo yaqaanaa. falaare ilays ayaa waxay ku dhaceen miraayada kadib waxay sameyn doontaa noqod, ayay sameyn doontaa noqodka kadibi markaas yacni barta labada noqod ee reflectionka ah ku kulmaana waxaa ka samaysmaya humaag ama image samaysmaya. humaaga marka waxaan u kala saari doonaa kuwa actually meet at some other point, kuwa ku kulmi doono actually meet oo si saxa u kulmi doono oo aan u bixin doono real image oo rumaaga realka ah ee runeedka, or appears to meet ama u muuqda marka inay ku kulmeen at some other point oo asigna u bixin doono insha allah virtual image oo humaag beenaad ah. waxaan nahna markii falaarilayse kasoo fardhismaan bar noqodka kadib waxay u muuqataa laba micnood, waxay noqonaysaa idir laba midkood oo ah in si sax ay ku kulmaan bar kale ama ay u muuqdaan inay ku kulmeen bar kale.
bartaasa waxaa loo yaqaanaa marka ay ku kulmeen image humaag ayaa loo yaqaanaa ee shayga uu leeyahay. Wayhay there can be two kinds of image. Waxaa jirta laba nooc imageka uu leeyahay ama humaag uu leeyahay. Midna waxaa loo yaqaanaa real image, humaag runeedka ama realka ahi. Midna waxaa loo yaqaanaa virtual image, humaag beeneed. Watii haddaan sheegayno weeyaan haddii actually media some point uu yahay waa real image weeyaan. Haddii appears to me that some other point uu yahay waa virtual image weeyaan. Wayhay anagoo markaa halkaa kasii wadi doona imageka. Hadda waxaan ogaanay maxaa la dhahaa image. Anagoo si caadi u qeexayna waxaan ku sheegnay seeing the details of an object in macluumaadka shayga screenka laga arki doono reflectionka iyadoo naga caawinaysa ayaa waxa u naqanaa humaag. Scientifically waxaynu ku qeexi karnaa markii falaarilaysi kasoo fardhismaan bar noqodka kadib waxay ku kulmi doonaan si sax ah ku kulmi doonaan bar ama ay u muuqdaan inay ku kulmaan barta ay ku kulmeenna waxaa loo yaqaanaa image ayaa loo yaqaanaa. Masalan hadda tani waa plane mirrorkii incident raygii ayaa ku dhacay. So incident raygii laba qaaba falaar loogu soo bixiyay oo marna parallel la ah principal axis-ka marna si toos ah u soo baxaysa marka yani boolka. So markay principal axis-ka ku dhacday noqodka kadib waxay u muuqataa marka barta noqodka kadib barta inay marka meet ay ku kulmeen ayay kana sidoo kale reflection kadib waxay u muuqataa in barta taa macnaheedu waxay tahay plane mirrorka wuxuu sameynaa marka image waliba virtual ah ayuu sameynayaa marka plane mirrorka. sidaa ujeedadna plane mirrorka astaamaha uu sawirkana ka wareehan kartaa marka astaamo gaara uu leeyahay plane mirrorka oo realka image ka samaysmay waa virtual ayuu noqonayaa. Si lamid ah miraayada iyo image ka fogaanta isku jiraan si lamid ah ayay isku jiraan marka objectiga iyo miraayada fogaanta isku jiraan ka hadli doona insha Allah. Way real image iyo virtual image bal tooshkan ka daba qaadano oo hadda waxaan soo fahmnay in imagekii uu sababaya marka reflection of light-kii oo barta meesha ay ku kulmeen ama u muuqato inay ku kulmaan. Marka waxaan u qaybinay kuwa actual meet ah oo real image ah iyo kuwa appears to meet ah oo virtual image ah. Bal aan qeexna marka real image maxaa lahaa. Horta marka hore waxaan ku dabaqaynaa imagekii qeexitaankiisa meelaha ay ku kala duwan markaas ay ku kala hari doonaan. When a ray of light diverges markii ray of light ka ay kasoo fardhismaan from a point bare kasoo fardhismaan kasoo wada baxaan reflectionka kadib actually converges waxay ku kulmi doonaan ama ay isku kulmi doonaan ama ay ku wadaagi doonaan sama point waliba actual ah oo si sax ah ay ku kulmi doonaan. Then imageka samaysmay waxaa loo yaqaanay real image. The image waxaan dhahnay waa divergent point or light diverging from the point to y actually meet or appears to meet a point or some point. Marka actually iyo appears ka san kala saari doona. Midka actually convergent ama actually meet at the some point uu yahay imagekaas waxaa u naqaanaa marka imageka loo yaqaano real image. Ogsoonow real imageku mar waliba wuxuu noqon doonaa mid qalaban oo inverted oo yani marka rogan ayuu noqonayaa marka. And that can be taken on the screen screenkana waa laga arki karaa markaasi real imageka. So real imageka waxaan dhahnay is always inverted mar waliba wuu qaliban yahay ama waa uu rogan yahay. Okay. waxaan sameeyaa concave mirrorka ayaa sameeya oo falaarilayska labada falaar laga soo qaado objectiga kulli waan gaari doonaa. Miraayadan iyadana sidoo kale maan hadda kan miraayadan plane mirror ma ahan. hadda yani aniga waxaan ka hadli doonaa waa real image iyo virtual image hadda ka sii sharxayna marka. So kan waa miraayad ka mid ah miraayadaha concave-ka ama spherical mirrorka ka mid ah oo concave loo yaqaano. image-ka samaysmay waa yani horta image-kii ayaan waxaan rabnaa marka faham ahaan guud aan ka helno falaaraha fiiri divergent at the point ay kasoo baxeen ama kasoo fadhismeen. So convergent noqod kadib meel ay ku kulmi doonaan barta ay ku kulmeen imageka samaysmay ayaa loo yaqaanaa. So imageka samaysmay maxaa loo yaqaanaa real image waa mid qaliban ujeedaa waa inverted weeyaan oo mid rogan weeyaan. Wayhay markii laga hadlayo virtual image-kana
waxay ku kala duwan yihiin. Midaynta waxay ku midaysan yihiin in falaarelesot marka hore kasoo fadhismaya ama kasoo baxayaan point noqodka kadib bartaa waa marka meeshay ku kala harayaan. kan hore oo real ah wuxuu ahaa actual mido ahaa ama actual convergence. Kan waxay tanqayn marka appears waxay u muuqataa to diverge from another point inay markaasi kasoo fadhisan bar kale inay kasoo fadhisan ayay u muuqataa. Then image format imageka markaas samaysmayna waxaa loo yaqaana marka virtual image ayaa loo yaqaana. Okay, si lamid ah virtual image haddii imagekii oo samaysmay realka imageka ahaa inverted uu ahaa kanna sidoo kale wuxuu noqon doonaa erect mid taagan ayuu noqon doonaa. sidoo kalena wuxuu noqon doonaa lateral inverted yacni qaliban laakiin ma ahan mid rogan ma ahan mid yacni waxay u muuqataa sida side hand yacni ama left sideka waxay u muuqataa right side ayay u muuqataa marka oo imageka uu leeyahay and cannot be taken on the screenkana laga arki karo marka ma laguma qaadi karo. Okay, sida caadiga fiiri waxaa sameeya hota miraayada convexiska si lamid ah plane mirrorka haddana soo arkeyniba virtual image uu sameeyaa. So bar ayay markaa ka imaadeen divergent noqodka kadib waxay u muuqataa inay ka imaadeen ujeeda waxay u muuqataa inay ka imaadeen ama ay ku kulmeen imageka. So marka bartaasi ayay u muuqataa marka inay ka imaadeen. So bartaas samaysmay marka waxaa loo yaqaanaa marka image ayaa loo yaqaanaa. maadaama uu erect yahay uu taagan yahay sida objective oo kale u samaysan yahay waxaa loo yaqaanaa marka virtual image waaye oo wuxuu ka mid yahay tusaale virtual imagekii wuxuu yahay waa mid erect ah markii virtual yahay waa erect real markuu yahayna waa inverted weeyaan. Okay, convex mirrorka ayaa sameynaya iyo weliba waxaa sameynaya plane mirrorka haddaan soo qaadanay. waayahay hadda waxaanu fahmi karnaa marka hadhow haddii nala weydiiyo maxay ku kala duwan what difference between real image and virtual image maxay ku kala duwan yihiin. marka hore qeexitaanka waa ku kala duwan yihiin oo real image waxaan ku qeexnay waa light diverge from a point after reflection actually converges at some point waa kuwa si sax ah ku kulmaya marka bar ay ku kulmayaan noqodka kadib waxaa loo yaqaanaa real image. virtualkan maxaan dhahnay appears to diverge from other point yacni waxay u muuqataa inay ka imaadeen ama ay kasoo fadhismeen bar kale ay ka imaadeen ay u muuqataa. So virtual image weeyaan. maxay kale ku kala duwan yihiin real imageku mar waliba wuxuu sameeyaa inverted ayuu sameeyaa and can be on the screen ayaa loo can be taken on the screen. virtual imagekana waa erect ayuu sameeyaa mar waliba waana lateral inverted and cannot be on the screenka laguma arki karo marka. waayahay inversion iyo lateral inversion balan kala fahna inversionkii oo hadda roganka ahaa iyo lateral inversionka balka hore aan kala fahna labada eray ee haddana si hadhowaysan ay noo noqona mid markaasi lagu yacni wareeraha. inversion muxuu yahay marka inversion imageka markii lagu guda jiro inversion imageka inversionka markii laga hadlayo waa top sideka shaygan toobkiisa objectiga beers waxay u muuqataa the bottom side of the image markii image uu samaysmo waxay u muuqataa marka in qeybtahay oo asiga bottomku ahaa in imageka uu noqdo marka sideka oo toobka ah halka objectiga uu toobka u ahaa imagekana uu noqdo marka bottomka uu noqdo dhinaca kore shayga wuxuu noqon doonaa marka dhinaca hoose ee objectiga imagekan dhexe and vice versa bilcagsi yacni wuxuu weygan oo kale markii laga joogo wuxuu horizontal ahaan axiska u wareegi doonaa 180 degree ayuu hal mar wareegayaa. So su'aale haddii b ay tahay waa isagoo markaa qaliban oo weliba b naqanaya oo hal mar wareegaya 180 ay naqanaysaa marka. waayahay sida qaab noocan oo kale ah qaybta madaxa ah waxay u muuqataa bottomka imageka halka qaybta bottomka ahna ee objectigana waxay u muuqataa marka top of the image ay u muuqataa. lateral inversion ma ka duwan yahay mise waa la mid qalibaanta uu ka duwan yahay laakiin meeshii top iyo bottomka ah markaana waa left right ayaan ka dhigan doonaa. Okay, during lateral inversion marka lagu jiro lateral inversion marka lagu jiro waa left sideka dhanka bidix ee objectigu leeyahay waxay u muuqataa right side of the image and vice versa. si lamidaasina 180 iyo vertical ahaan wareega phenomenumka due to
phenomenon ka usoo ba in markii miraayada laisku fiiriyo left handi gacantaada midig ama gacantaada bidix ee u muuqato gacantaada midig markii miraayada imagekiisa aad aragto vice versa bilcagsiga in a plane mirror marka laga hadlayo mirrorka salaxa ah iskuleed waxaa loo yaqaanaa lateral inversion ayaa loo yaqaanaa مثلا miraayada salaxa haddii aad dul istaagto right handigaaga ee objectiga kuwa miraayada waxay ka dhigi doontaa left handiga under imageka samaysmay waa imageka samaysmay ay noqonaysaa masalan tusaale ahaan boy oo kale markii objectigaasi ama shayga markii lagu fiiriyo miraayadana waxay noqonaysaa sida tan boy oo noqonaysaa boy ayay noqonaysaa marka so marka saa qaab noocaas ayay noqonaysaa marka oo leftiga rightka iyo u muuqataa lateral inversion noocaas loo yaqaan inversionkana qaabkaas loo yaqaan characteristics uu leeyahay plane mirrorka waa virtual and it cannot be taken on the screenkan laguma qaadi karo ama laguma heli karo qaada taken ah waana virtual oo mid beenaad ah weeyaan wayhay si lamid ahay imageka is erect waa mid rogan waaye oo mid oo taagan waaye yani erect ah oo aan rognayn oo inverted ahayn si lamid ahna same size marka lagu dhahayo masalan hadda objective halkan uu yaraa kan waa plane mirrorka kan waa virtual imageki samaysmay imageka kan hadduu yahay 2 mitir hadduu yahay 2 mitir joog ahaan heightka yani this is 2 mitir ay noqonaysaa oo 2 mitir ay noqonaysaa objectigan size-kooda waa isku mid kan size-kiisa hadduu 2 feet yahay kana waa 2 feet 3 feet hadduu yahay kana waa 3 feet size-kooda waa isku mid magnification-ko there is a magnification of image jira marka so the mirrors plane mirrors waxay soo saari doonaan magnification dhan 1 ayay soo saari doonaan magnificationka ilan magnificationku wuxuu la mid ahaa hi of ho ayuu la mid ahaa hi of ho haddii labada h ay isku mid yihiin oo kana hadduu 2 mitir yahay kana 2 mitir haddii laisku qaybiyo 1 samaan magnificationka soo 1 imageku lateral inverted ayuu soo saaraya anaga waxaan ka hadlayna waa plane mirrorka waa imageka ka samaysmaya plane mirrorka salaxa lateral inversion micnaheedu maxay tahay left side-ka wuxuu u muuqanaya marka right side ayuu u muuqanaya of the imageka red oo kale sida qaabkan oo kale u yaal sidoo kale imageka samaysmay far behind of the mirror kaas object in front of it yani imageka behind the mirror ka samaysmay dhanka oo u jiro mirrorka si lamid ah ayuu objectigana mirrorkaas u jiraa equal distance yani objectiga iyo plane mirrorka distance ay isku jiraan wuxuu la eg yahay objectiga mirrorka iyo imagekaas distance isku jiraan masalan haddii labadani distance isku jiraan ay tahay 7 oo mitir ahi si lamid ah labadan distance isku jira imageka iyo plane-kan waa 7 mitir waxaa lagu weydiin karaa imageka iyo objectiga meeqa isku jiraan marka 7 times 2 ama 7 plus 7 waxay noqonaysaa waa 14 ay isku jiraan guud ahaan waa imageka iyo objectiga laakiin objectiga iyo miraayada mar su'aalo badan laga weydiin karaa meeshan waxa lagu dhigi karaa midalan objectiga iyo virtual iyo imageka ayaa waxay isku jiraan 18 haddaba imageki iyo miraayada meeqa isku jiraan 18 kala baraysaa basically 9 mitir ay isku jiraan okay wayhay image formed by 2 plane mirror kan khalidana markan mirrorska waxaan ka dhigi doonaa ilaa 2 mirror kan dhigi doonaa plane mirrorka maxaa samaysmay ogsanow markii mirrorsyada 2 plane ay image ka samaysmayaan when 2 plane mirrors placed at an angle multiple image are formed markii 2 plane oo lasoo aqriyo waliba angle ama xagal ahaan loo sameeyo waxaa samaysmi doona multiple image fara badan humaagyo fara badan ayaa samaysmaya waxaan u sababa due to reflection is from 2 mirrors noqnoqodka ilaysyada isku dhaca reflectionka more reflectionka samaysmaya mirrorsyada ku samaysmaya ayaa u sabab ah ka imaanay okay formula isticmaal doona inta image aan rabno inaan helno haddii 2 plane aan isticmaalayno okay and formula for calculating number of images from 2 plane mirrors formula hana ayaan isticmaal doonaa in uu taagan number of image 360 oo loo qaybiyay tiitada oo laga jiray 1 so angle-ka markaas labada mirror u dhaxaysa la siin doonaa laba markaas ku qaybin oo laga jiro halna
waxaa soo bixi doona marka inta image ee samaysmi doona. The number of image format depends on the angle between the mirror. Numberkani oo yacni markaasi imageka samaysmaya wuxuu ku dirsan yahay marka angalka markaas u dhexeeya. taa oo macnaheedu tahay haddii angalkaasi uu bato yacni mirrorsyada samaysmaya wuu ku tiirsanaanayaa oo saameyn ayuu ku yeelanaya. masalan tusaale ahaan haddaan kasoo qaadano haddii lacag aan haysano angle 90 degree ah meeqa image aan heli karnaa meeqa image ayaan heli karnaa. qaacidadii aan soo qaadano 360 waxay la mid tahay 360 oo loo qeybiyo theta oo laga jaray 1 balaan bedelno 360 oo loo qeybiyo 90 degree 90 degree markii la isku qeybiyo 36 markii loo qeybiyo 9 waxay noqonaysaa marka 4 laga jaray 1 waxay la mid tahay 3. So number of image format markii angalka uu yahay 90 degree waa 3 weeyaan. imageka samaysmay 3 weeyaan. marka qaabkaas loogu shaqeeyaa marka rabto inaad soo saarto number of image format to plane mirrorska adigoo adeegsanaya marka qaacidada. way uses of plane mirror. plane mirrorka maxaa loo adeegsadaa marka? waxaan soo ogaanay inuu leeyahay characteristics uu soo saarayo virtual erect yahay lateral inverted uu sameynayo intaa kasoo hadalnay same size inay yihiin imageka iyo objectiga. so hadda macnaha waxyaabaha loo adeegsan doono marka they are used at looking glassyada ama okyaalaha wax lagu fiirsado ayaa loo isticmaalaa. sidoo kale waxay soo saaraan they are used waxaa la soo saaraa marka as providing false dimensions in a showcase. يعني dhinaca beenaadyada ayay soo saaraan. false dimensions يعني waa optical view weeyaan. optical view of the vision weeyaan. okay image imageka is the same size as the image of object. waatiyan ka soo hadalna waa maadaama imagekiisu sizeka of the image uu la mid yahay marka size of the object. so there is a magnification of image ajirta marka. so two mirror are used facing each other in a showcase when multiple image is forming. waxaa loo isticmaalaa markaas markii multiple imageka ay soo saarayso oo kale two mirrors are used. laba shay ama laba mirror ayaa la soo dhigayaa marka sida hadda aan kaga soo shaqeynayno waaye. inta marka image la helayo marka waxay ku tiirsan tahay angalka marka aan haysano. they are used by opticianada ayaa isticmaalaan iyagoo marka u adeegsada marka to provide say usoo saaraan marka false dimensions ay usoo saaraan dhinaca beenaadka ay usoo saaraan. they are used waxay sidoo kale loo isticmaalaa in lagu dhiso ama lagu design gareeyo reflection periscope-ka qalabka loo yaqaano noqodkeeda oo ay sameynayso in lagu dhiso construction lagu sameeyo ayaa loo isticmaalaa. so they are used in solar cookers and solar cookers yadana for reflected rays of flower ilaskiyada soo dhacay ama noqday of the sun qoraxda in the cooker ay karinta ahi idan sidoo kale solar cookers kana waa loo isticmaalaa midka loo yaqaano plane mirrorska. sidoo kale waxaa isticmaalaan by barbariyaasha isticmaalaan sida customerka ay gadaashiisa madaxa gadaal ay u tusaan oo kale iyo mid lamid ahi ay u isticmaali doonaan. waxaan rabnaa marka inaan ka hadalno marka reflecting periscope-ka. reflecting periscope-ka muxuu yahay wata? periscope muxuu yahay? qalabkaas waa optical instrument. waa qalab oo ilays ama optical aragti ah that is used oo loo isticmaalo marka system of prism qaabkii prismka systemka ahaanka lenses weliba bikaacooyinka or mirrors ama miraayadaha to reflect si soo celiya marka reflect ay u sameeyaan image through the tube. image soo dhex mara marka tube-kay. so reflecting markay sameeyaan ay ku dhacdo miraayada sidoo kale kana miraayadan si lamid ah ay ku soo dhacaysa kana waa meesha oo view laga arki doono waaye ama qofka uu arki doono. waxaan dhahnay periscope use of either waxaa loo isticmaalaa marka mirrorska oo labada midkooda or prism loo isticmaalaa marka that let viewer kaasoo markaasi qofka u ogolaanaya marka viewer see around object inuu arko marka around object markaasi waxyaabaha aroundiga ku ah ama ku hareeraysan. so periscope maxaa loo isticmaalaa marka? reflecting periscope maxaa loo adeegsadaa? waxaa loo adeegsadaa to see above a heat cloud. yani waxaa loo adeegsadaa marka heat cloud waxyaabaha aadka madaxyada aad iskugu jira oo aadka crowdiska ah buuq ahi in markaasi si toosa markaasi use to see above kor ahaan loogu arko marka. si lamid ah it is used by soldiers in strange warfare. sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in askartu ama askarigu u adeegsado xeeladaha dagaalka iyo wixii lamid ah inuu adeegsado ayaa sidoo kale loo isticmaalaa.
waayahay marka advantage-ka ama disadvantage-ka uu leeyahay briscope-ka maxaa ka mid ah final bright ama the final image is not brightly the final image is not brightly yani maahan mid markaasi oo aad u dhalaaleyso muuqata as light energy is absorbed due to sida tamar ilayskaas uu absorbed uu ku sameynay due to taa oo usoo baxa marka two successive reflection laba noqod oo weliba successive ah ayaa usoo baxa marka in not brightly uu noqdo mid aad u dhalaaleysa ama fasiix u ah so final image ka soo baxaya marka waay si lamid ahi any deposition ama waxaan dhahnaa horta final image-ka haddii uu noqdo in not brightly maadaama uu fasiix zaid ahayn oo una sabab ah marka noqnoqodkii oo markaasi aad u bata so sidoo kale waxaa kaloo jira marka haddii deposition uu jiro ama dust uu jiro yani moisture of wax loo yaqaan dusty haddii waxyaabaha boor oo kale ama ceryaamo oo kale ama adi moisture yani waxyaabaha busta iyo waxyaabahaas ka mid ahay haddii ay jiraan ama dhigaal qoyaan uu jiro mirrorsiyada reduces reflection waxay caddeynayaan in reflection aysan sameynayay marka hoostaas ka yaraanaysa marka masalan hadda waa fahmi kartaa haddii mirrorka uu tusaalahan boor iyo adiga wax oo adiga yani markaas dhalaalidanka miraayada oo caweer gelinayo oo kale reflectionkiisa noqodkiisa sidoo kale wuu yaraanaya waxaad dareemi kartaa haddii miraayada ee boor leeda haddaa hor istaagtid iyo markii boorka laga tiro hor istaagtid labadooda imageka si toos ama si wanaagsan meel la arkaya waa marka ay dhalaaleyso oo boorka laga tiro oo nadiif laga dhigo oo brightly laga dhigo ayay markaasi miraayada reflectionkiisu increasing uu noqonayaa laakiin reducing reflection marka uu noqonaya waa goorme waa marka ay jiraan deposition of moisture ama dust yani boor marka ay jirto markaas ee miraayada ka jirto so almost to nil marka aan ahayn sida with briscope haddii mar hadduu boor uu jiro meesha maxaa ka dhalanaa marka in reducing reflection uu noqdo mar hadduu reducing reflection uu noqdo briscope cannot be used in a place man loo isticmaal karo marka meelaha where there is lot and duster or moisture meelaha yani busta oo kale leh looma adeegsan karo wax loo yaqaan briscope sababta maxay tahay they reduce waxay yareeyaan marka reflectionka ay yareeyaan mar haddii reflectionka yareeyaanna image la arkayo ma noqon doono marka image markaasi lagu qanca ama objectiga sidiisa ahaana ma lagu arki doono insha Allah okay aad u mahadsantiin dhegeysigiina waxaan ii daawashadiina qaaliga fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalka inoo subscribe garee adigoo gujinaya gambaleelka like commentiguna waa inoo muhiim mahadsanid